بسم الله هذا waxaan u imanaynaa PHP-gii baynu markaa hadda dhex gelaynaa awal theory-giisii information-kii waxyaabihii hadda waxaynu u soconaa dhinaca iyo practical-ka waxaa jira PHP database wax loo yaqaan routing protocol-iska forward routing-ka maxaa la yiraahdaa default route maxaa la routing protocol-iskiisa iyo sida lagu verify gareeyo ayaan hadda bilaabayna ugu horeyn waxaa sida caadiga ah biris buu sameeyaa routing protocols routing protocol waxa weeyaan tusaale laba router iyo wax ka badan hadda isku xidhiidhay sidoo ay ku xidhan yihiin mid kasta LAN-kiisi wuxuu noqonayaa wax la yiraahdo neighbor buu sameysanayaa router kasta neighbor buu yeelanayaa marka waxa la leeyahay marka neighbor table baa lagu yeelanayaa table uu ka kooban yahay information-kii nadweegyada uu yaqaan kaasi adigu waxa taqaanid marka dadka kale u sheegtid dadka kale waxay yaqaanaan ay adiga ku sheegan waxa taqaana waxa dadka kale yaqaanaan marka waa list of all configuration PHP neighbors weeyaan ko waa listkii manually has to be manually configured using a neighbor commands keenadan iyadoo la isticmaalayo waa in manually aad ugu eegtaa waxa leedahay show ap PHP summary waad oran kartaa show ap waxa kale oran kartaa PHP neighbors waad oran kartaa neighborskaaga arki doontaa ama show ap PHP na waad oran kartaa halkeed wuxuu dirayaa wuxuu ku taqaanina ku tusayaa walow aynu baran doono attributes iyo path selection iyo sidoo doorto meelaha uu connection ka helayo dhan ayuu ku tusayaa oo muxuu forward karaynay waxa la mid ah inaad routing protocol-iska aad isticmaasho show ap PHP oo marka uu ku tuso show ap route aan raahdo uu ku tuso OSPF haduu ku configure gareysay iyo JRB haduu ku configure gareysay RIP iyo PHP kolba kii ku configure gareysan oo ku tusayo marka sidan ayaa kolka koobaad database-kiisa loo eega marka waxaan eegaynaa marka koobaad syntax waxa la yiraahdaa general formula oo isticmaalayo PHP sidan weeyaan router-kaaga baad tagi global configuration mode-ka waxaad oran doontaa router PHP ayaad marka koobaad ba active kareynaysa autonomous number-ka halkan soo qaadan autonomous number-ka maadaama baranaysido state yahay ama public soo qaado ama private ki soo qaado tusaalaha 100 iska soo qaado ama 200 ama 300 ay number dabeetana waxaad tiraahdaa neighbor-iski baad halkan sheegaysaa neighbor-kaaga yaa waay cida adigu aad wax ka soo qaadanaysid ee kugu xigta interface-ka adiga ka soo horjeeday connection ka soo qaadanaysid waayo ay address-kiisa halkan gelinaysaa remote ace-kiisana waad gelinaysaa haddaad isku autonomous number tihiin halkan aad gelini haddaad different autonomous number tihiina halkan aad gelini iyo ugu dambeyn adiga maxaa xagga dambe kaaga xidhan ee network-kaaga ku xidhan marka network-digaaga sheegi iyo subnet mask-kiisa sidaasi ayaad ku advertise garaysa routing-kaagi dhinaca kalena sidoo kale muxuu sameeyaa isna isaasoo kale lagu soo sameeyaa ka bacdina waxa sameysmaya database routing-kii ayna halkan ku soo aragnay database-kii ayaa sameysmaya ka bacdina neighbors baad arki doontaa adoo show ap PHP summary oranaya ama neighbors dabeetana waxaad arki doontaa connection-kii isweydaarsanayaan that is to do that practical